عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كلنتي وعنا wanaagsan idin ahaantiinba daawadayaasha qiimaha iyo qadarinta naga mudano ku soo dhawaada barnaamijka arrimaha jacaylka barnaamijkan intuu socdo waxaad ka dheehan doontaa Jeka Media News fadlan haddii aad inagu cusub tahay falowna soo dheh like-tan ugu dhiirigeli sidoo kale saaxiibada muuqani la wadaag haddii aynu gudaha u galna barnaamijkeena waa sheeko jacayl waxayna ku saabsan tahay wiil iyo gabadh waana qiso xanuun badan wiilka iyo gabadha uu jacaylku ka dhaxeeyay waxay isjeclaayeen way nolol farxad iyo reerayn ku dhisan ku noolaayeen muddo badan waana ta sababtay in jacaylkoodu gaaro halkii ugu sarreysay ilaa iyo in qofba uu tabo qofka kale haddii xitaa uu hurdoonayo jiifo waayo jacaylkooda ayaa ku dhisnaa is-aaminaad kalsooni iyo nafurnimo jacayl maadaama uu jacaylku yahay kan keliya ee qof kasta aaminsan yahay taasina ay caddaynayso in jacaylku ka mid yahay nolosha aadamaha dhammaanteed haase yeeshee marka dhinaca kale laga eegana uu jacaylku yahay kan ugu xanuunka iyo dhibka badan ee qof insaana uu soo maro ama uu ku keeno qalbijab ragaadiya noloshiisa oo dhan arrinkaasi oo marka dambe ku dambeeya qoomamo iyo murugo xaddhaafa waana halhayskii caan baxay ee ahaa jacaylku marna waa qaraadh marna waa macaan marba waa siduu kugu soo maree kadib jacayl muddo dheer lamaanahan ay ku dakaynayeen waxa maalimaha ka mid ah gabadhii waxay bartay jacaylkeedii gabadh ay saaxiibo dhab ah yihiin muddo bilaah kadib waxa isbeddel aan la filayn waxa uu ku yimid jacaylkii lamaanaha is-aaminay kaas oo soo kala dhex galay shaki hareeyey gebi ahaanba noloshooda saamayn xunna ku yeeshay arrinkaas oo ay ka dambaysay gabadhii ay bartay wiilka ay jecleed oo ku noqotay arrinkii ahaa jacayl xaasid ma waayo ha yeeshee arrinkaasi ayaa sababay ugu dambayntii in lamaanahani muddo jacaylka ku raaxaysanayay rabayna in ay ugu noolaadaan jacaylkooda sida boqortooyada uu ku soo gabagaboobo burbur iyo baaba sababay ugu dambayn inuu noqdo mid guuldaraystay ayna sabab weyn u ahayd gabadhii saaxiibta dhabta la ahayd oo jacaylkeedii jarka tuurtay iyadoo xitaa xushmayn weyday gabadha saaxiibteeda wiilka ay isjeclaayeen haddaba daawade su-aasha isweydiinta mudan ayaa waxay tahay adigu saaxiibkaaga aad jeceshahay bari lahayd jacaylkaaga su-aasha jawaabtaasina fadlan qaybta komentiga nagula wadaag sidoo kale haddii aad jeceshahay barnaamijyada noocan oo kale ah inaynu soo badinana fadlan qaybta komentiga nagula wadaag barnaamij xiga intaynu ku kulmi doonana sidaa iyo kulanti dambe oo xiso leh